waxaa dhacday bari qisad nin boqora oo boqoradii muslimiinta soo maray ka mid ahaa ayaa u soo galay xaajiyadiisii marwadiisii buu u soo galay isaga oo maaragtaan aad u murugaysan oo naxsan markaasay ku tiri maxaad la naxday maanta waa naxsan murug baa kaa muuqatee boqoroo say wax u jiraan markaasuu ku yidhi inankeenii ayaa gaaladii uu la dagaalami lahaa ee jihaadka uu ku qaaday ciidankiisii waa la soo jebiyey isagiina uu soo baxsaday markaasay ku tiri warkaasi war la huba ma yahay iska fiiri markaasaa maalmo kadib haddana boqorkii oo waxaa qasriga soo galay aad u faraxsan marka xaaskiisii baa ku tidhi maanta aad baad u faraxsantahay say wax u jiraan ii sheeg waxa uu yidhi marka inankeenii gaaladii uu ka adkaaday uu ka guulaystay haniimo iyo xoolana uu soo qaatay uuna soo galay magaalada oo galabtuu soo galay uu soo socdaa deedna markaasay ku tidhi warkan damba saxa wuxuu yidhi adigu soo fadhiiso maalintii hore warkaan kuula imidana waad beenayso run been buu noqday warkii warkan dambe maanta aan kuu sheegayna waa sax baa tiree sidee wuxuu jiraa malii sheeg waxay tidhi inankaygaa curad maalintuu calooshayda oo galan caloosh riximkayga aan ku hubsaday ilma inuu galay luqmad xaaraana afka inaan geliyaan ka ilaaliyey tidhi maalintii aan dhalayna markii aan daahirsaday tidhi naas ma nuujin ilaa naaska waxaan nuujinayay bay tidhi anoo weyse qabay tidhi marka cunuga tarbiyadiisii halkaa aan ka soo bilaabay inuu gaalo ka soo baxsadaa waa mustaxiil bay ku tiri waa mustaxiil aabbuhu sidaa waxuma ogaan karo laakiin hooyada u og hooyadu hadday hagaagsan tahay ilmuhuna uu hagaagi hooyadu hadday ba'naatana ilmuhu uu ba'naan